waa mahadsantaa deeqo intaas waan ka gudbaynaa kadib waxaan filayaa sidii oo Boston u wareegtay qaybta ganacsiga yar horumarinta ganacsiga waxaa noqotay musharax waxa uu oratay district 7 kadib waxa uu oratay district 4 marka taariikhdaas aan rabnaa insha Allah markaan istul taagno marka tay horeysay sidii shaqaalihii ka shaqeynaysay shaqadii sidii postiga iyo marka uu oratay district 4 ama 7 horta Cabdullaahi intaanan district 7 iyo City of Boston ba aadin waxaan la soo shaqeeyay xildhibaanka nagu matala aqalka cad Elizabeth Warren sanatarada waxaan u ahaa campaignkeedii organizer oo waxaan organize gareynaa Afrikaanka oo dhan waxaan kala bartay Massachusetts haddaad Western aadad Ghanaian u badan Waltham haddaad state ka meelaha aan kala deganahay Brazilianki I was focusing on Afrikaanka continent of Africa Soomaalida waxaa lagu xisaabiyaa Boston Roxbury marka Springfield oo kale waxaa la yiri Guinea degan marka waxyaalahaas oo dhan organizer aan u ahaa kadib marka Afrikaanka u qaabilsaneed Afrikaanka u qaabilsanaha waa garta iyada la soo shaqeeyay campaignkeeda alxamdulillah campaignkaas waa ku guuleysanay wax badan ka adixtaa ka barataan isla kala ya markaas ila shaqeynay oo supervisorkayga ahaa mataqaana mayor Michelle Wu hadda mayorka magaalada Boston marka iyadana waxay u qaabilsaneed sanatarada community of color waxa dadka minority ah dhan bay u qaabilsaneed bay coordinated waxaad ma sha Allah marka halkaan ka bartay iyada so basically connection siyaasadda iyo waxa ka soo xirmay Elizabeth marka kadib waxaan ogaaday in codaynta ay muhiim tahay Cabdullaahi in codaynta la'aanteeda waxyaalo badan ay suurtagelaynin absolutely sharciyada dhan baa lagu bedelay marka masaajidkii al-taqwa baan intaan miis soo dhigto oo aan soo gado chips iyo dadka register gareyn jiray ma qaar inaan xasuusatay in kale Green Street oo ku yaalay Green Street marka dadka waxay ku leeyihiin inta badan marka dhaadid qof iyo haweenoo is diiwaan gali inaad codeysid waxay ku leeyihiin maxaa lacag ka soo galay ma bade mid ma kala fiirin xilligaas lama aqoona filaya sida maanta la joogo waaqic maanta la joogo maanta doorashadii la fahmay Soomaali badan meel walba caalamka mutaqaana ka tartamay ilaahay Umar baa ku jira xaq marka hadda waxa la fahmay in codkaaga ku Soomaali dhaqanka waxa garanaysa hadda meel laga codeeyo waliga Soomaali la yito jira oo timid ya abayaasha laakiin ma maqal marka taas waxay keenaysaa marka uu codee mutaqaana inuu qofka dhaho waristiis ma fahansana dadkaan wayba sugaanba 18 ka gaartid waa codeynaya wax u horeysa aan sameeyay waa inaan codeeyaa marka is diiwaan gelin badan baan ka soo shaqeeyay inaan community-ga diiwaan geliyo waayo sanatarkii aan la shaqeynay baa waxaan ka bartay muhiimadda ay leedahay codeynta iyo dadka markay is diiwaan geliyaan iyo grassroots laga soo bilaabo marka is diiwaan gelintana waxay caawisay hadda ka hor masaajidka Green baa rabay inay meel gataan mayorkii hore oo joogi jiray maya Manino oo na siiyay masaajidka ISBCC ugu weyn hadda wuxuu yiri community-ga ma codeeyaan oo yiri community-ga ma codeeyaan masaajidka wuxuu rabay masaajid ka weyna maadaama muhiim u tahay in Soomaalida ee masaajid yeelato sababtoo ah waxaa jira dad badan oo Carabiga Ingiriiska ba aqoonin marka khudbadda in Soomaali lagu suubiyo oo muhiim bay noo tahay inaan yeelano meel masaajid ah oo berina aan ka duuli karno marka mayorka baa wuxuu yiri ma codeeyaan dadka Soomaalida ma codeeyaan dad muslimiin marka dadkii aan diiwaan geliyay spreadsheet ay ugu jireen masaajidkii baan geeyay waxay noqdeen waxay ku meel tagaan oo ay ku gorgortamaan kadib baa waxa ay ku dhashay hadda Soomaalida waa diiwaan gelisay number fiican waaye dadka waa u yimaadaan ninkay tartamaya ama naagta tartamayso waxay leeyihiin Soomaalida aan u tagno waa dad codeeya kadib baa waxa igu dhashay musharax Soomaaliya waa in la helaa annaga inaan noqono ma aha dadka ugu shubno annaga isugu shubi karnaa ciyaal kaliya inaan noqon mar walba waa garta marka kadibna waa taan tartamay so district 7 ama ka u tartamay district 7 aan tartamay adoo marka experience campaign ka haysta senatorka la soo shaqeeyay waxyaalo badan soo ogaaday si ahayd marka gashay doorashadii markaan galay way fiicneed open seat bay ahayd open seat waxaa la markuu kursiga banaan yahay qofna qofkii ku fadhiyo uusan kula tartamayn marna waxa waay kursiga asoo qof ku fadhiya daarta inaa ka qaadid marna kursiga waa iska banaan yahay 13 qof baan ku tartamaynay gabadhii noqotay city councilka ku soo baxday
waxaa la yiri faamilkeeda 100 sano deganaaye Roxbury aabaheeda wuxuu ahaa waxbarashada wuxuu ka ahaa superintendent iskoolaadka waxbarashadu haystay marka waxaa la yiri see qof saas oo kaleeta ah oo haweysad inaa ula tartanto adiga waxaan iri aniga aabaheeda kuma dhalan 100 sano ma joogin laakiin track recordkeyga fiiriya markii aan imid ilaa hadda waxaan qabtay muddo yaroo kooban waxaan ku qabtay markii ay noqotay campaign lacag aruurin waay markay noqotay lacag aruurintana anaa ka hormaray iyadii laakiin ummadii baa u saadiyeen oo iyadu waxaa la dhahay front runner waay qofta kusoo bixisaada waa la saadiyey qofta kusoo bixi doonta waay marka 13 baa soo dhaafay iyadii baa number 1 gashay nin kaloo madooba number 2 galoo Rufus la dhaho marka ana number 3 baan galay markaa meeyarkii ahaa baa isoo wacay oo wuxuu yiri congratulations hambalyo anaga Soomaalidana hambalyo waxaan u maleynaa markaan waxayno leey hadda isku dayday oo darajada saddexaad ku soo baxday still waa big deal marka wuxuu yiri waa isku dayday waa welina rajadaadu way fiican tahay oo qof yar baa tahay waa istijaabin kartaa wuxuu kaloo yiri campaignkaaga waa foola gareenaye waxaa ku yimid yiri National TV documentary liga suubiyey waa garta oo waxa weeye anoo albaab garaacayo iyo waxa isku soo aaday Trump oo markaas noo noqday madaxweyne oo noqonaya miya 2016 la doortay markii ugu horeysay laakiin 2017 wuxuu nagu daray wadamadu baangareeyay Soomaalida marka wiigi uu wadankaas nagu daraa anigana waxaan wax tartamaya musharaxan ahay headline-kii wixii soo qabsaday marka kadibna waxaan la soo shaqeeyay Mayor Walsh oo noqday wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadii Biden waxaan u ahaa neighborhood business manager saddex xaafadood baan matalay Mission Hill Bowden Geneva meel ay dhahaan oo Dorchester ku taalo iyo Rosendale intaas marka uu mas'uul uga ahaa kadib goormaytii marka city of district 4 goor wato magaalada kadib Roxbury ka guuray markii aan guuray kadib baan haddana waxaan iri ma istijaabisid markaas baan waxaan la kulmay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Walsh Washington buu aadayay wuxuu yiri ma ana isoo raacdid oo ila shaqaysid waxaa jirto yiri shaqada iyo shaqaalaha qayb dadka soo galootiga ah oo wadanka raba inay ka shaqeeyaan visa la bixiyaa wadanka waxay ku soo gali lahayn la bixiyaa marka that department aan shaqo ka gelinaya maadaama aad rabtid inaad dumarka caawisid ama dadka soo galootiga ah waxaan iri waa mahadsan tahay laakiin wadnahayga wuxuu rabaa inaan tartamo in la doortaan rabaa waxaan kaloo rabaayaan inaan Boston sii joogo diyaar uma yahay hadda DC na u guuro waa yahay buu yiri dad buu igu xirxiray markaa asaga uu sii baxayay taageera markii aan guuleysanina waan wacay oo igu soo celiyo wasiir waxaan iri inaan ku maqlay ahayd ila ku raacay marka wuxuu yiri am glad ina wadnahaaga maqashay haddana dadkii ku sii bartay yiri awal hadii district 7 iyo Roxbury ku taqiimay صح hadda baan iyo Dorchester laga yaqaan hadda waa baahday waxaan filayaa inaad ahayd gabadhii ugu horeysay oo muslimad ah xijaaban Soomaali ah boosarka tartantay adaa koow Soomaali marka haddana gabar kale ka dambeysay oo ayada noqotay maalkii sida u orday boos 7 noqotay dhalinyar kale Soomaaliya soo baxday marka wadadaas in tilaabada qaaday ee furantay oo maanta muslimiin ay city councilka noo galeen haddana kuwa kale u socdaan maxay kaaga dhigan tahay albaabka afurtay wallahi muhiim waa wax muhiim ah ilaahay igu dhaliyna waa xamdi naqaya Cabdullaahi waxa dhacday markii aan campaignka ku jiray xitaa social media heena waa la jabsaday oo dad campaign manager iyo dad cadaan ay la shaqeynayay waxa lagu soo qorayaa Soomaaliya tag refugee baa tahay isaga carar meesha way u tartamaysaa dadka qaarana albaabka ku garaaco maadaama ahay qof xijaaban oo aan dhahoyno
waddankaanaan ku barbaaray soomaaliyaan ka imid waxay ku leeyihiin see aan u dareemi karaa inaa imatali kartid waa sax marka naftarkayga waxay ii ahayd waayo aragnimo cashar sababtoo ah qof madoow ah oo ku dhahayo I cannot relate to you seen u dareemaa inaa imatali karto soomaaliya ka timid adna madooga waddankaan ahay waa sax waa annaga marka inta nimaan waxaan u malaynaa dadka dhan inay isku mid yihiin madoow waa sax haa ama mararka qaarkood Soomaalidu ay dhahaan anaga madow Anaga madow ma dadka ihin, madow haa. yahay baan naga isma nihin haa marka debateka markii la maraayo su-aashaas baa la ii weydiiyey see noo aan kugu aamini karnaa say noo matali kartaa ha Soomaaliya tahay Muslim tahay I'm not Somali Muslim Alla ma ihi muslimeehi ama Soomaalida meesha ka haa. saar madow aad tahay laakiin muslim aad tahay wax xijaaban tahay haa. gabadheeda kuma eka marka waxaa jirta Cabdullaahi su-aalo oo aan lagu sheegin oo aan ka beeraan degin oo dadka iska kaa weydiinayo calol goys Allah kuwaas waa garta ilaahay afkayga wuxuu kusoo dhaliyay waxaa iri waddankan waxaan u imid public safety waa sax safetyga ma jeceshahay in wax laga soo bedelo ma jeceshahay educationka inaan wax ka bedelno housingka inaan wax ka bedelno waa sax maadaama ii arkin madowga waddanka ii arag qof u raba inay waxaasoo dhan wax ka bedasho Aad iyo aad. horena housingka ugu soo shaqeeyey dadkaan caawinayna ay isugu jiraan Maraykan iyo Soomaaliba waa sax cid walbaba cid walbaba waayo Cabdullaahi marka shaqo la bilaabayo laguma oranayo waddanka Soomaali maaha Waa sax. laguma oranayo Soomaali kaliya saacid waa sax you have to help everybody amiin yes American tahay simple haa waddankan waa America Soomaalida waxaan ka nahay number yara number yara Marka marka alxamdulilah gabdhaha yaryar oo jiilka soo korayana waxay arkayaan in ay haweysanayaan in waddankan aan ka tartami karno waa sax marka guul soo hoyatay ahayd ما شاء الله ما هذا نحن في ليا إني وضلاء فرنتي قبل بدن أو قبل كان بيصير ولي بسطة كمان ترتبين صومالية لكن قبل بدن ورنتي واحد جرا ترتبي كرا أو إن شاء الله تعالى دي قناة مرول بيني شوكتها إن شاء الله هنا وصوتنا وصوصتها that's breaking news أنك حتى نوتا ما شاء الله أوكي دقيقة أنت صدق أوجد بأرنكاس وحنا روا أنا أوجد بمركان shaqada ah hadda agaasimaha ka tahay director of small business marka waxaan rabaa inaad bal yar wax yar aad noo soo koobtid shaqadaadu maxay qusaysaa marka la dhaho small business marka iyo business waa laba marka small business waxaa lagu saleeyay shaqaalaha kambaniga uu haysto mise dhaqaalaha uu haysto marka bal maxay tahay shaqadaadu marka su-aal muhiim waaye Cabdullaahi taas intaanan ka jawaabin waxaan rabaa inaan idin sheego waaxda dhaqaalaha waxaa hoos yimaada departmentyaal badan oo ay ka mid yihiin caymiska oo kaleeto insuranceka cable and internetka cablada iyo internetka waxaana hoos yimaada waaxda filimada waxaana hoos yimaada oo kaleeto oo department aan leenahay sharci dejinta waxaan leenahay ganacsiga waaweyn haddii company aad tahay Canada ku yaala ama Africa ku yaala ama Europe ku yaala oo aad rabto Massachusetts xafiis inta ka furato ama laan cusub ka furato company-ga ama meel kale ka register garaysan maadaama gobolkan uu yahay gobolada ugu horeeya Maraykan adduunka oo dhan loogu yimaado marka qaybta aan joogo waxa waaye small businesska waddanka waxaa jirta international business iyo maxaa la dhahaa local business state business waxaa hadda SBA ay ku xisaabiyaan small business content staff wixii qofkii kambarigii shaqaale content ka yar haysta marka shaqaalaha hadday content gaarayaan marka portfolio waxaa ku jira 1 ilaa 19 employee waxaan kaloo portfolio ku jira oo ayagana aan u sheegay in dadkeena marka ay yimaadaan aysan ogeyn nidaamka lagu furto in aniga moolal aan soo furay anigoo ogeyn caqibo badanna la kulmay marka dadka immigrantga ah profilekooda yimaadaan haddii qof dumar ah tahay that same portfolio-ga imaanayaan waxaa kaloo jirta quasi agency dowladda lacag ma bixino laakiin waxaan suubinay hay-ado bixiya lacagta idinku amarsiisiin lacagta annaga aan siino hay-ado ganacsatada sii siiya oo communityga sii siiya marka hay-adahaas waxay qofka ayagaa baaritaan ku sameynaya wuxuu yahay idinku markaa businesska aqoonsatiin ayaga wixii ka dambeeya sameynaya miya mise wixii dhan idinkaa sameynayseen lacagtun baa ugu dhiibayseen maya ayaga inay ganacsatayaasha la shaqeeyaan ama communityga la shaqeeyaan lacagtana ay codsadaan waayo markii stateka budgetka saxiixo xafiisyada cabinet ay dhahaan ma leh lacag
waxaa hoos yimaada hay-ado kale oo lacag ah marka hay-adahaasna haddaa community tahay waa soo codsanaysaa ganacsiga yaryar haddaa tahay waa soo codsanaysaa haddaa tahay company raba inuu Massachusetts yimaado oo taxi break la siiyo oo canshuurta wax laga dhimo maadaama uu shaqo abuur suubinayo kulli meeshaasaa ka soo codsanaysaa marka hay-adahaasna guddigoodan ku jiraa oo waxaan rabaa in maadaama administration lacagta ay yihiin in dadka ay u adeegayaan dadkii soo dalbadayna ay wax suubinayaan marka board meetingkoodan tagaa marka haddaan dib ugu laabto let's say anaa hadda business furanayo for example then applicationkii ma website aan galayo oo aan kasoo apply gareynayo kasoo xidhiir maaragtay waxaan soo dalbanayo kadib xafiiska maaragtay uu kugu imaanayo kadib aad go-aan ka gaaraysiin businesska annual business macquul qofka wuxuu soo bandhigay oo kale wax fiican ama wax soconaya macquul gal inay yihiin kadib baa lacagtu soo dalbado oo kale hadday deyn tahay hadday deeq tahay ka fakaraysiin process saas soconaya miya mise si kale uu qofku siyaabo kale loo maamulaa Cabdullaahi anaga waxaan nahay heer gobol baa gartay businesska haddaa rabtid inaad furatid degmadee ka furanay Boston baa ka furanaysaa ma waxaa ka furanaysaa Somerville Cambridge you know wuxuu ka koolmaa gobolka 368 degmooyin iyo tuulooyin marka su-aasha koo waa xagee ka furanaysaa Boston haddaa ka furanaysid laba option kuu bannaan in gobolka aad noo timaadid Commonwealth stateka Secretary of Commonwealth au tagtid oo aad furatid abuuxisid sharciga LLC go kaleeto corporationka shatiga 500 waay laakiin siriga haddaa tagaysid waa $65 laakiin qofka labadaba u baahay qofka labadaba uma baahna waayo koo markaa bilaabaysid adiga waxa ku xisaabtamay qarashkaaga waa sax 500 inta bixin lahayd siriga bilow siriga dadka inta badan ka soo bilaabaan aan arkay waa sax kadib bay markay kabsadaan oo businesska weynaado state-ka ay u yimaadaan marka businesskaaga aad register garaysid kadib baa waxaan kuu direynaa hay-adaha lacag deeqda bixiya matalan hay-adaha kala duwan life science haddii dhanka science-ka aad rabtid dhanka technology-ga hal abuurka haddaa rabtid caafimaadka haddaa rabtid climate change ciidamada maxaa marka is different category businesskaaga ku xiran tahay marka idinkaa u diraysiin qofka marka hay-adahan dadka ayagaa jeegaraynaya miya mise idinkaba ka hor jeegaraynaysa hay-adahan waxay dejinayaan nidaamkii garaanta ku heli lahayd annagana we oversee approvalkiyaa leenahay okay waa fahmay marka shakhsi ahaan hay-ada waxaa jira dee muxuu ahaa local ah organisation ah bas sida small businesska ayagan wax soo dalbadaa mise iyagu kuwaas waxa ma siisiin hadduu number of qof leeyahay oo kale ama hay-ad ka shaqeysa caafimaadka hay-ad ka shaqeysa waxbarashada immigrantiga u shaqeysa ama hay-ad soomaaliyeed oo magaalada degan oo kale marka sida small businesska maadaama business ahayn ayagu ay for number of yihiin soo dalban karaan marka dhaqaalo way soo dalban karaan xafiiskeenaa bixiya waa garta markii deeqda soo baxsadaana go-aan baan ka gaarnaa applicationada waa sax committee baa jira committee marka adiga waxa u tahay head committee waa ka mid ahay waxaa isku imaanaya inta department headka ah waa garta kadib baa go-aan la gaarayaa waxay ka soo codsadaan online waxaa la dhahaa community one stop markii gudoomiyaha Maura Healey ee xilka ku guuleysatay waxay tiri waxaan suubinayaa wada tashi maadaama xilka looga soo horeeyay ma aysan rabin inay jaan qaado waxay rabtay inay dadka bulshada dhageysato intayna go-aan gaarin marka waxaan suubinay economic development listening section wax la dhaho dhageysiga dhaqaalaha see Massachusetts loo horumarin karaa waxaa xusid mudan dad badan oo Soomaaliya oo ganacsatayaal ah ama community leader hogaaminayo inaan shirkaas ka cusumay in taladooda ay soo gudbiyaan si isbedel loogu sameeyo waxa looga bedelo ra'yigooda loo dhageysto markii administration isbedelo waa sax 4 sanaba mar baa la suubiyaa marka wada dhageysigaas waxaan ka faa'iidan anagoo Springfield baa nin Spanish wuxuu yiri ganacsiga markii qofku uu yahay ama markuu community yahay dawladda waxa waay waxyo kala duwan waa sax waxaan u baahannahay hal meel oo aan tagno oo halkaas meel A to Z waxaan u baahannahay
aan qabano waa sax inta wareeri lahayd aad tagi lahayd intaasoo department A xafiisyo iyo intaasoo xafiisyo iyo intaasoo safar aan geli waqti aad lahayn ku dhumin lahayd waa sax hal meel aan imaano waxaan ka qaadano marka waxaa la suubiyey ra'yigiisaa la qaatay waa wada tashigana waxay ahaydba in bulshada ra'yiga la important qaato aad iyo aad marka ra'yigiisaa la qaatay waxaan soo birnay business front door wax la dhaho waa gartay oo ah portal sida community-ga ay wax usoo codsadaan sax oo kale inay ganacsadata usoo codsanaysid waa gartay مثلا business front door aan kala gareynaa waxaan gelinaa deeqa jibriil waa sax ganacsigaygaan gelinaa waxaan u baahnahan gelinaa lacag haddaan u baahnahay shaqaalo abuur haddaan u baahnahay dad ii shaqeeya kadibna waxa waaye meeshaas baa waxaa lagu asaan gareynaya qof kula shaqeeya waa gartay haddii qofku uu already haysto businesska uu maarata u furan yahay iyo hadduunan haysanba oo u furnaynba still front doorka inuu kasoo bilaabaya marka hore front doorku kasoo bilaabaya haddii ganacsi uu kuu furay xitaa haddaa ra'yigaa haysaa okay waa fahmay khayr allah ku siiya waxaan rabaa inaan u gudbo aan kaa weydiiyo arrintaa laftigeeda anaga Soomaaliland nahay wixii Soomaalida noqsay adu laakiin state ku dhanaa matashaa 360 degmo ayaad small business u qaabilsantaa marka hay-adaheena Soomaaliyeed ee magaalada degan oo Soomaalida caawiya waxa tir way soo dalban karaan marka magacyadooda ma rabno inaan ogaano laakiin ka mid yihiin dadka hay-adaha soo dalbada oo lacagta la siiyo oo state-ka u fangareeyo oo waxbarashada ku siiyo caafimaad ku siiyo guriyeynta ku siiyo immigration ku siiyo marka ma ka mid yihiin hay-adaha Soomaalida ee gobolka way ka mid yihiin Cabdullaahi waxaa kaloo mudan inaan sheego waxaan waa public record la dhaho wax qarsoomaya ma aha waa sax dadka qaata website-yada hay-adaha bixiya lacagaha haddaa gashid bay kusoo qorayaan inta ay siiyeen waxa ay qaateen xitaa haddii la raadiyo proposalka se u qoreen waa sax waa public waa la soo heli okay hay-adaha marka lacagta siisiin oo kale korjoogteynta yaa iska leh seebaa loo ogaadaa hay-adan wixii la siiyey ama lacagta lagu siiyey inay qabatay ma inay casumaan ma inay tusaan ma report bay soo diraan ilaa berina mid kale soo dalbanayaan soma marka taas ma la isweydiiyaa mise qofkii soo dalbada horaa laga siiyaa ما تحس application قالوا ويدينا عبد الله وحكوا قرن time frame إلا أنت وقتها وحكوا قبنيسا سي وحكوا قبنيسا ما يخو ماذا جارسينيسا all that application كي كغير جوابين لكن وحي قبان department research أو دبق ليسا هدي لعل لتهمه واسع وحقبة هي ذها اوف سايد او كوكا اجر او كون او دبق لك سوينيا لكن انت بدل ما دام administration kan kamid ahay waxaan arkaa dad badan hay'ado badan oo sanadkiiba soo bandhiga waxqabadkooda oo annaga xitaa state official ahaan nacasuna oo aan tagno marmar waxaa la dhahaa in gudoomiyaha ha ka hadasho ama gudoomiye ku-xigeenkeeda marmar anaa la ii diraa marka dadkaas waxay soo bandhigay hay-adahaas waxqabadkii lacagta dowladda ay bixisay wixii lagu qabtay wixii success story-giisu inta gaartay soo bandhiganayaan okay dowladdeena waxay u tahay sharaf bay u tahay waxoodii lacag ay bixiyeen in ay arkaan oo ay tusoo itaabsi ay noqoto labada dhinacba win waay labada dhinacba faa'iido ay u tahay waayo qofkan wuxuu mas-uul iska saaray inuu ummadda anfaco dowladdana waxay mas-uul iska saartay inay iyadana ummadda anfacdo oo ay bixiso wixii ay bixiso okay marka hay-adaheena Soomaalida gobolkan degan عسوان نوع عسول ما ينفذين إني نحن وحنا قبلنا كعلينا الأرك. ياس عبد الله وفديان لكن هر قبل من نوع عسوان. واقعته. لكن still هي يعني صوص عضان. وادعي كرتها. هذه. I hope so. هذه. وحنا بقينا كويديو مالنا ويد هو تبعيله صعدة في قبل كا حنوع عسول تانية تيم كائنا كقريب قلنا. أرنا يقول لي سي شر بريس كونفرنس يقول لي سي سناب كله كويني حالتيس marka bishan hadda waa dhamaatay marka arinta waxa abdida ka soo kordhay sida ummadda Soomaaliyeed ee gobolkan degan hooyooyinka caruurta dadka waayeelka runtii ku nool nooca snaapka ama full snaapka waxa ka soo kordhay meesha la dooran karo loo aadi karo lacagtii waagida maalintii waxay dhaheen we still thinking in qofka individual soo apply gareyn karo in uu maaragtay meesha hay'adda maaragtay toos uga abaarayo marka wax ka soo kordhaa noo sheegi kara jirtaa عبد الله ما تحتها إن
gudoomiyaha waxay soo bisay press conference واقع ee arrintaas ka hadlayso oo ay leedahay United Way hala taageero. واقع United Way waa urur deeq bixina وصل فلا اوكي samafala ah. Dadka foundationka waxay ku dhiirigelisay inay wax ku darsadaan si ummadda loo deeqsiiyo. صح Marka United Way ganacsiga ama qofka shaqsiga ah صح direct wax ma u tarto. Waa. Waa inaad haysataa 501c3 waa inaad organization tahay. صح Marka waxaan u baahanahay Cabdullaahi wacdigelin badan واقع waayo family badan baa ay saameynaysaa واصح oo ay ku jiraan waayeeladeennii caruurteennii. واقع marka hadii hadda Soomaalida oo kale waa inay marka hay'adaha noo dhisan ay hoos tagaan u tagaan ay dhahaan ayagoo ay lacagta soo qaataan ama wixii la bixinayay loogu talagalay ay keenaan ummaduna ay toos u abaaraan hay'adaha noo dhisan ama kuwa kale oo marka ay deriska leeyihiin oo ay garan karaan saas weeye soo ha hay-adaha Soomaali ha noqdaan ama ya Soomaali noqon inay aadaan food pantry-yaasha inay aadaan inaan laga xishoonin food pantry-ga. صح waxaan kaloo qorshaha ku daray oo xitaa administrationka aan u sheegay haddaan Soomaali nahay ama Muslim nahay ma haysano meel food pantry oo xalaal ah. صح aad iyo aad marka taasina waxay u baahan tahay abaabulkeedii. aad iyo aad baa u mahadsan tahay. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa akhyaarta sharafta leh ee meelkasta anaga daawanaysiin. walaashay Deeqa Jibriil oo runtii aad kaaga mahadcelinayo timeka iyo waqtiga aadna siisay. waxaan ogahay in interview inta uu ka dheeraan lahaa laakiin waxaan adigana waqtigan inaad degsan tahay waa ognahay. marka walaalayaal waxaan ka codsanaynaa insha Allah idinkana video markuu soo gaaro inaad share gareysiin maaragtay aad saaxiibadeen la wadaagteen wixii comment iyo ra'yina aadna la wadaagteen insha Allah tacaala. waa aniga Cabdullaahi Maxamed iyo tiimka Cabdullaahi Kooriya waxaan kaga tagaynaa habeen wanaagsan oo wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.